asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan ku surwaada maanta iyo wararka ugu waaweyn aflaamta hindiga ee channelkan waxaanu soo qaadan doonaa maanta akhbaaraadka ugu dambeeya aflaamta hindiga maanta iyo filimada hindiya ee soo baxay jimcada maanta hindiya waxaa saaran filimka actor weyn wiilkiisa baryahan u aad ka u kacsan bollywoodka oo dhan waxaa loogu wada hambalaynaya actorka weyn Amitabh Bachchan walle waa ninka waa jabhadeeyay aad iyo aad u soo jabhadeeyo wali waxaanu soo qaadan doonaa maanta akhbaaraad kale oo qayb uu ka yahay Saif Ali Khan oo aanan abaalkay u gashay xaaskiisii hore aktarada ahayd Amrita Sen isagoo hadda qaba tarisho kale oo weyn wali waxaanu soo qaadan doonaa gabadha Saif Ali Khan weligeedba waxay ahaan jirtay mid kuriyootay in filimadu jisho waliba Janvi Kapoor gabadha Sari Devi oo hadda bilowday duwista filimka Dostana iyo wali waxaanu soo qaadan doonaa maanta akhbaaraad kale oo uu qayb ka yahay Amitabh Bachchan oo lagu taliyay in uu ka fariisto filimada xarimo caafimaad darteed iyo hambalyada aktarka weyn ee Kamal Hassan filimka uu soo wado Salman Khan ee raade iyo war kale xiiso badan baanu soo qaadan doonaa oo maanta aflaamta ku saabsan war hadda saaxiib channel ku xustaan noo subscribe gareysay aad hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka madadaalada entertainmentiga ama aflaamta hindiga guud ahaan aktarada hindiya ayaa u wada hambaleynaya aktooraha weyn ee Amitabh Bachchan waxaa maalin wadadiisii hordhacnay inuu u dabaaldegi doono konton sano guuradii kasoo wareegatay muddadii uu filimada hindiya soo jilay muddo 50 sano ayaa laga joogaa markii Amitabh Bachchan uu kusoo biiray filimada hindiya hadda muddada filin uu jilay wuxuu maanta joogaa 50 sano oo uu filimada hindiya ku jiray saaxada shilimooyinka hindiya ayaa waxa uu ku jiray legendigan weyn ee hindiya muddo 50 sano dhammaan aktarada Bollywood oo dhan ayaa u wada hambaleynaya actorka kan weyn jilaaga caanka Farhan Akhtar ayaa waxa uu ugu hambaleynaya jilaaga kan ee weyn Amita inuu gaaray muddo 50 sano sidoo kale Shilpi Shetty ayaa u dabaaldegay iyadoo sawirka labadooda hab isiinaya soo gelisay legend Amita bay leedahay 50 sano oo kalena waan ku rajaynaynaa waliba waxa ka soo hadlay actor kale oo waaweyn oo filimada Hindiya lagu yaqaan waliba actorka weyn ee Karan Johar ayaa isaguna cadeeyay Amitabh Bachchan inuu weligii ahaan doono taariikhda Hindiya nin meel weyn kaga yaalo weligeen waxaad ahayd buulo midkan ku dayano waxaad ahayd midka mucjisiga saaxirka aan leenahay weligeedna waad ahaan doontaa buu leeyahay waxaad ahaan doontaa legendiga hindiga oo dhan baad ahaan doontaa weligaa buu leeyahay shinemooyinka hindiya weligaa way ku xusnaan doonaan buu leeyahay waxaad noqon doontaa mid ay ku daydaan kuwa soo baxaya Amitabh Bachchan 50 sano ayuu hadda filimada hindiya ku jiraa waxaana ninka kan ugu yaraan uu keenay 190 filim buu keenay muddada 50 sano ee filimadu soo jiray xitaa waxaa tan looga dhisay London waxaana filimkii ugu dambeeyay actorka kan weyn uu keenay uu ahaa filimkii Badla Bachchan ayaa xitaa waxa la guddoonsiiyay abaalmarinta National Film Award oo abaalmarinta dawladda Hindiya ay bixisay actorka ugu fiican sanadka filmo badan baa lagu siiyay filimkii Agnibad Black Ba iyo Biku waxaana sidoo kale la siiyay sanadii 2015 abaalmarinta Padma Bhushan oo ah abaalmarinta labaad ee yacni Hindiya ugu muhiimsan weeyaan abaalmarinta labaad Hindiya ugu muhiimsan laga bixiyo weeyaan la siiyo dadka bulshada wax badan ka qabsaday waa abaalmarinta labaad ugu muhiimsan weeyaan Hindiya laga bixiyo hadda isagu waa 77 sano jir weeyaan actor kan weyn waxaana ninka kan filimkii ugu horeeyay uu keenay uu ahaa Hindustani waa Saad Hindustan uu keenay sanadii 1969 kadib filimadu ku soo shacbaxay waxay bilowdeen wixii ka dambeeyay 70-meeyadii filmadii Sancher Diwar iyo filimkii blockbuster noqday ee Sholay 69kii uu filimada ku soo biray haddana waxaanu joognaa sanada 2019 baan u soconaa 50 sano u buuxsantay baa lagu leeyahay actorka kan weyn ee lagu magacaabo Amitabh Bachchan marka guud ahaan actorada Bollywood oo dhan ayaa u wada hambaleynaya jilaaga weyn ee Amitabh waxyaabaha kale isla Amitabh Bachchan ku saabsan actorka weyn waxaa kamid ah Amitabh Bachchan waxaa looga digay hadda in uu wax badan filimada Hindiya sii wado in habeen iyo maalin uu shaqeeyo baa looga digay baa lagu leeyahay actorka muddada 50 sano soo jilaya filimada actorka muddada 50 sano u buuxsatay inuu filimada jiro Amitabh waxaa looga digay inuu sidii hore filimada u jiro waxa leeyahay Amitabh ka naso wuxuu leeyahay actorka ayaa mataqaana baraha bulshada kula wadaagay taageerayaashiisa in warqad caafimaad in talooyin caafimaad isagu la siiyay marka laga soo tago xataa cunugiisa dhaqaatiirtii ayaa ugu baaqday ninka la yiraahdo Amitabh Bachchan inuu markaan ka nasto filimada oo habeenka iyo maalinka uu jilayo ninka kan Bollywoodka ayaa muddo 50 sano wuxuu soo ahaa nin habeen iyo maalin filimada jilay habeen iyo maalin buu muddo 50 sano filim soo jilay waxaan hadda dhaqaatiirtu ay sheegeen buu leeyahay oo cunugeyga Abhishek Bachchan uu kamid yahay uu leeyahay ee dhaqaatiirtu kula taliyeen inay wixii inta ka dambeeyaan ka nasta filimada marka Amitabh Bachchan ayaa taageerayaashiisa u sheegay in muddooyinka soo socda ay tahay
inuu ka nasto filimada waxaanu Amita sheegay maadaama uu konton joogo konton kale oo sano inuu rajeynayo inuu filimada kusii jiro warkiisa kama dhigna inuu filimadu ka fariisanayo laakiin waxaa loogu baaqay in uu waqti nasiinas qaato ayaa loogu baaqay actorku inuu maalin cisbitaal xataa la dhigay Amitabh Bachchan hindi oo dhan baa dadkii bulshadii iyo aktaradii dhan baa u wada hambaleynaya dhan kalena jilaaga caanka weyn ee lagu magacaabo Kamal Hassan baa isna loo wada hambaleynayo jilaaga weyn Kamal Hassan waa mid kamid ah aktarada ugu weyn Hindiya wuxuu noqday 65 jir buu noqday wuxuu dhalay mid kamid ah hadda atrishooyinka Hindiya ugu caansan buu dhalay ee lagu magacaabo Shruti Hassan ayuu dhalay waa mid kamid ah atrishooyinka hadda filimada jira Kamal Hassan waa la yaqaana waa mid kamid ah aktarada ugu weyn Hindiya weeyaan 60 jir buu noqday waxaan lagu xustaa inuu keenay filmo dancer ah waliba comedy iyo action hadda xasuusto film uu haweeneydan isku jiray waa ka haweeney uu ku jiray isagoo dumar iska dhigay markii cunugtiisa loo diiday inuu soo booqdo markasta ayuu wajigiisa isku bedelay dumar iska dhigay markaas uu cunugtiisii guriga jaariyad amal oo kale ugu la shaqeynayay si gabadhiisa uu helo xaaskiisii horna ugu dhawaado ninka wuxuu ahaa nin qosol badan buu ahaa Kamal Hassan isna waa loo hambaleynayaa wuxuu noqday 60 iyo wuxuu noqday 5 sano jir buu noqday baa lagu leeyahay actorka weyn waxyaabaha kale iyana ugu weyn maanta akhbaaraadka Hindiya iyana waxa kamid ah actorka lagu magacaabo Ayusha Khurana waa mid kamid ah actorada hadda filimada Hindiya kamid ah waana actorada hadda Hindiya aad ugu dhex muuqanaya ayaa qarsa kari waay ilaa hadda jaceelku uu hayo actorka weyn Shah Rukh Khan sidoo kale Amir Khan buu amaanay waxaanu ku tilmaamay Shah Rukh Khan iyo Amir Khan yihiin labada actor uu ku daydo gaar ahaan actorka weyn ee Shah Rukh Khan wuxuu yiraahdaa anigu waxaan is arkayaan baan hay u leeyahay anigu waan Shah Rukh Khan isana u leeyahay kadib markii maalin Shah Rukh Khan uu dabaaldegay dhalashadiisa actorka waa uu soo hambaliyay Ayusha Khurana uu hambaliyay Shah Rukh Khan sidoo kale wuxuu bartistoodka ku cadeeyay inuu isagu yahay is arkayaan wuxuu leeyahay anigu Shah Rukh Khan baan ahay yani Shah Rukh Khan ba hawlay actorka aan ku daydo waligeeba isagoo actor hadda filimada ku soo biray Ayusha Khurana muddooyinka filimada jiray ayuunan qarinayn in ninka uu ku jecel yahay filimada uu yahay actorayaasha inuu yahay Shah Rukh Khan sidoo kalena uu aad isna u jecel yahay actorka lagu magacaabo Amir Khan sidoo kale wuxuu yiri Amir Khan isaguna sidoo kale wax badan baan ka bartay waa mid kamid ah actorada ugu weyn Hindiya Soomaali uu leeyahay aad baan ugu daydaa uu leeyahay marka Ayusha Khurana ayaa sheegay labada qaan Amir Khan iyo Shah Rukh Khan inuu ku daydo gaar ahaan Shah Rukh Khan marka loo fiiriyo inuu yahay mid uu ku Shah Rukh Khan ku waashaba wuxuu yiraahdaa is arkayaan baan hay uu leeyahay waan Shah Rukh Khan isanahay sidoo kale Amir Khan uu taageeraa dhan kalena waxyaabo ugu miisan waxa ayna maanta kamid ah aflaamta Hindiga actorka weyn Saif Ali Khan maanan ilaabin abaalka u gashay xaaskiisii hore ee Amrita Sin waa mid kamid ah atrishooyinka Hindiya soo maray waxaana laba carruur bay u dhashay ninka la yiraahdo Saif Ali Khan waa xaaskiisii hore tirshada ahayd haddana actoradka lagu qabaaye waxa uu leeyahay Saif Ali Khan xaaskayga Amrita Sin waxay ahayd buuri qofkii ugu soo gacan qabtay xirfadeeda maanta meesha ka joogo yani waqtiyadiis aroosayeen waxay ahaayeen laba dhalinyaro bay ahaayeen oo booludka ku cusub bay ahaayeen waxa uu sheegay xaaskiisii hore in abaal weyn ugu hayo Amrita Sin iyada ugu caawisay uu leeyahay heerkan maanta aan ka joogo uu leeyahay filimada ma ilaawin barka xaaskiisii hore Amrita Sin waqtigan oo xataa xaaska la qabo waxay labadan is arooseen sanadii 1991 waxaan isu dhaleen laba carruur oo maanta weynaadaba Saaro hadda atrisha noqotay iyo Abraham oo wiil kale weyn noqdayba inkastoo hadda uu qabo markuu furay xaaskiisii Amrita Sin 2004 ayuu waxa uu guursaday 2012 atrishada weyn ee Kareena Kapoor waxaanu dhashay wiil lagu magacaabo Temur laakiin ilaa hadda ma ilowsana Saif Ali Khan waxay u qabatay xaaskiisii hore ee Amrita Sin dhan kalena walow laakiin xir fiican baa kala dhaxay bal leeyahay dhan kale gabadhiisa waa kan Sara Ali Khan bariyahan waxay noqotay mid kamid ah atrishooyinka filimada jira dhowr filim bayna keentay welina hadda waxay soo wadaa filimkii Kolino 1 ee hadda ka hor isla keeneen actorka weyn Govinda iyo Karishma Kapoor filimkii shactirada ahaa Kolino 1 ee soo baxay shantii superhit ka noqday bay hadda waxay la soo wadaa qaybtiisa labaad actorka lagu magacaabo Farun Dhawan waliba actorada tan ayaa filmo kala duwan dhawaan keentay waxay hadaba sheegtay todobaadkan baraha bulshada ku wadaagtay sawirka geeska yaala bay ku wadaagtay waxayna leedahay anigu tan iyo sanadii 2000 baan u diyaarsanaa bay leedahay inaan markasta filimada ku soo biro 2000 bay sawirkan ahayd markay yariska ay tahay haddana waa sawirkan iyadoo hadda markii hore way caylaan jirtay way sacaataysay waa ka jirkeeda yaraysay aad bay u qurux badnaatay marka waxay leedahay markay sawirkan bay soo gelisay dadkan baraha bulshada ay leedahay ilaa sanadii 2000 baan isku diyaarinay bay leedahay inaan filimada ku soo biro oo aan atrishnimo isku diyaarinay bay leedahay gabadha Saif Ali Khan ee Sara Ali Khan waxyaabo kale ugu miisanayeen waxa kamid ah gabadha ay dhashay aktrishadii caanka ee Sari Devi ee Janhvi Kapoor kuma hadda wuxuu noqday actoradii hore ilmaha dhaleen hadda ka buuxa waa kay gabadha ay dhashayna Sari Devi Janhvi Kapoor ayay inuu hadda bilowday baa leeyahay Dostana dubistiisa qaybta labaad filimka Dostana way dubistiisa ka bilowday lagu leeyahay Amri Star way ka bilowday lagu leeyahay waana qaybta labaad filimkii Dostana oo ay horay u keeneen actoradii weynaa Priyanka Chopra John Abraham Abhishek Bachchan ee soo baxay 2008 hadda qaybtan labaad waa Dostana 2 waxaan la wadaa actorka lagu magacaabo
Kartik Aryan marka gabadha lagu magacaabo Janvi Kapoor ay dhashay Sari Devi qaybta labaad filimkii Dostana ay hadda bilowday baa lagu leeyahay duubistiisa waxyaabaha kale ugu muhiimsan iyana maanta filimka dig waxaa kamid ah ma garanaysan wiilka ma garanaysaan waa wiilka uu dhalay actorkii waa Soomaalidu inkastoo yacni magacyo kala duwan ay u kala yaqaanaan baan malaynayaa meelo kala duwan shinimooyinka laga daawaday Soomaaliya qayb magaalo kastana waxa laga yaabaa ninkan aad saa u taqaan si kale looga yaqaano waa Soomaalidu qaar waxaan ka maqlay in dhacadin yiraahdo qaarkoodna waxaan ka maqlay jiray Shankar war wakiil Langar ahaa filimkii aatish ku jiray Sanjay Dutt ninkii la wada ma taqaana ayaa Langar ahaa in dhacada badan taqaan wiilkiisi weey ninka kanu waxa la yiraahdaa ninkaas waxa la yiraahdaa ninka ka Aditya Pancholi baa la yiraahdaa waa ninka aad arkaysa idin muuqda wiilkiisii weeyaan ninkan uu dhalay hore maahan filkii guri uu keenayo horena filin kale uu keenayo laakiin filinka hadda uu keenay waa satellite Shankar baa la yiraahdaa filan caadi ah weeyaan wiilka ninka baa wada actorka weyn wiilkiisii baa wada Suraj Pancholi baa la yiraahdaa waa filin inama aanu caadi ahayn maanta soo baxay Shinimooyinka India filimka Suraj Pancholi baa saaran actorka weyn uu dhalay waxyaabaha kale ugu muhiimsan iyana aflaamta Hindiga iyana waxa maanta kamid ah waa ugu dambeeyay atriishada lagu magacaabo Disha Patani ayaa aad ugu faraxsan inay mar kale film la keento actorka weyn Salman Khan gabadhan ayaa sheegtay inay qaado laadahay sidii u faraxsan tahay darteed in mar kale Salman Khan film la keento gabadhan waa gabadhii filmka la keentay ninka la yiraahdo Salman Khan filmkii Bharat haddana filmka Raade ee soo bixi doona ciida 2020 uu Salman Khan keeni doona ay la wada leeyahay atriishada ayaa sheegtay in aad ugu faraxsan tahay in mar kale ay la shaqeyso filmka ay tawaraha kan film la keentay bay leedahay Disha Brian waxay noqotay atriishada aadka u yacni filimada uu la sameynaysa Salman Khan marka Bharat bay la keentay haddana waxay nasiib u yeelatay filimka Raadi ee uu soo wado ninka la yiraahdo Salman Khan ciida marka la gaaro muslimiinta sanada 2020 inta aan gobgoynina aflaanta Hindiga maanta nabadgelyo